magaalada Hargeysa sakanta aqal kala baalay wada xariish yar bay hay ayaa ninkii Soomaaliya beeriyaalka iibiyay beeriyaalka intuu ruufka ka qaadan baxo shirkad keena balada aanta say ka cadaatay magaalada oo dhan bay isugu timid kolka bay dhisnaan karo meesha may dhisnaan شيخ ما بعرف أساس له شيخ مرة وهو يحكي صابر العلم والصبر عارف وهرقيسة وعاصمة جمهورية سوماليلاند waxaa hubaa la daawaday magaalada Hargeysa inay jirto muddo badan waxaa la sheegay magaca magaaladu inuu asalkiisa ka yimid Hargeys oo waagaas loo yaqaanay magaaladani waa magaalo taariikh aad u weyn leh waxay ahayd meel beeli degantay oo biyo lahayn oo dhanna xaraf u biyo tahay dhanna hallaya u biyo yahay yaa u barkhadle dhinaca bari dhinaca galbeedna xaraf baa uu yahay iyo arabsiyo iyadu beeyo kolka roobku da'aya laga cabaabay ahayd kolka kale si aan biyo lahayn meel beeli degan tahadoo beeshii la odhan jiray ciidagale beeshaasaa degganayd kolkii beeshii isku dushay baa loo yeedhay sheekh madar oo diridhaba looga yeedhay diridhabuu ka keenay sheekh madar kolkuu sheekh madar yidhuu labadii beelood heshiisiiyey ee halkan isku dilaayey ayuu ku daradoo awaloo dhanna xaraf u sokeeyo waxay sacad muuse waqooyinah shiishu u sokaysana u yeedhay iyagiina halkanaa laysugu dhaariyoo lagu nabda hawd bay ahayd beeshu degantay oo barwaaqo oo madheedh lahoo kayn lahoo xoolu daaqaan waxay magaalowday kolkii nabaddaa sheekh madar sabab uu ahaa ay dhacday Hargeysa waa magaalada labaad ee ugu weyn wixii la isku oran jiray Soomaaliya Hargeysa waa caasimad dalka go'ay Soomaaliya walow aan wali la aqoonsan laakiin wuxuu lahaa dhowr iyo 20 sano u dambeeyay maamulka madax banaanka Muqdisho 1860kii bilowgii imaatinka Ingiriiska ee Somaliland Hargeysa waxay ka mid ahayd magaalooyinka Ingiriisku doortay iyadoo caynkaa loo nabday baa Ingiriis soo degay kolkuu Ingiriis yimid buu burca ka dhigay hayd waa dharkii barastaabkana sheekh buu fadhiistay kolkee dabayl weyn baa jirta oo burco waa dabayl badantay berigii dambe ilaaleeyuu yidhi waxa ku wanaagsan Hargeysa hayd waa dharka Hargeysu laaran soo wareejiyey barastaabkii laaran la odhan jiray haddaba 1960kii bilowgii rajadii Soomaali weyn Hargeysa waxay u daadegtay darajada labaad ee caasimadnimo iyadoo awalkii hore ahayd caasimadda waxay dib u hanaatay darajadeedii caasimadnimo 1991kii sanado kadib markii la waayay midowgii lagu hanweynaa ee rajadii Soomaali weyn iyadoo dib looga dhawaaqay gooni isku taaga qarannimada Somaliland magaalada Burco waxay dib ula soo laabatay biladii luntay waa hore waxaa dhismo xooggan ku socda goobaha waxbarashada caafimaadka iyo bulshadaba taasoo sabab noqotay soo jiidashada indhaha maalgashiyada caalamka marka loo eego mujtamaca ku dhaqan magaalada Hargeysa waa magaalada ugu dadka badan magaalooyinka Somaliland hadda magaalada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 2 milyan oo dad ah
dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa si xawli ah ku socda marka loo eego siduu ahaa sanado badan ka hor. Haddaba daawade, muxuu noqon doonaa heerka la filayo inay Hargeysa gaadho 30 sano kadib?